السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داودي القضبة أدوركنكم مغلي دونتانا وحاكمدا كوحدتي بيلف وحسوق بانك جيستي قبل كأحمر ذي حل الدغال كي حقنا وقوي إتوبيا كسعودي أو كروسي كعي إصلاح علي تردو قيمة بدن يلقى دريمة مقالة دبر تابو وكتالا قبل كأحمر ذا sidoo kale shacabka axmaarada ayaa gabi ahaanba baneeyay dhulka lagu dagaalamayo ayagoo u qaxay wadamada dariska iyo magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya. sidoo kale jamhadda Oromia Liberation Front ayaa dagaal xoogan waxay ka wadaa meel ka fogaan magaalada Addis Ababa. warbaahinta qaar ayaa waxay sheegayaan wax aan 50 kilomitir dhanayn inay u jiraan caasimadda dalka Itoobiya waa Addis Ababa. sidoo kale laamigii weynaa ee isku xidhay dalka Kenya iyo Itoobiya ayaa maalintii saddexaad xiran ilaa waqtigana dawladda federaalka mayna ka hadlin xidhitaanka laamigaasi. daawadayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 20 bisha 8 2021 haddaan wararkeena oo faahfaahsan u gudo galno. kooxda TPLF ayaa xasuuq baan waxay ka geysatay gobolka Axmaarada maalinimadii shalay ahayd magaalo lagu magacaabo Missiona Loja ayaa waxa ka dhacay dagaal xoogan oo u dhaxeeya huwanta ay dawladda federaalka hogaaminayso iyo kooxda TPLF oo dhinaca. dagaalka ayaa waxa la sheegay inay meesha shacab badan waxyeello ka soo geysatay maadaama dagaalka ay soo qaadeen kooxda TPLF markii horena deegaanka ay ku sugnaayeen huwanta dawladda federaalka Itoobiya. kadib dagaal saacada qaatay oo halka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa waxyaalo waaweyn ka soo gaadhay shacabka meesha ku dhaqan. waxa la sheegay kooxda TPLF markay gacanteeda gashay magaaladaasi inay xasuuq baan geysatay oo dadkii meesha joogay ay dhamaantood magaalada ka saartay. sidoo kale kooxda TPLF ayaa waxay isku sii balaadhisay deegaano badan oo ka tirsan dhulkii ay shalay qabsatay balaana ayadoo la sheegayo in hubka noocyadiisa kala duwan ay ku garaacayeen magaalooyinka u dhulka dagaalku ka socdo. sidoo kale waxa la sheegayaa shacabka axmaarada ee ku dhaqan dhulka dagaalku ka socdo inay dhammaan faaruqiyeen ilaa shalay ilaa xalena la arkayay basaska oo ku sii qulqulaya wadooyinka waaweyn ee u baxa dhanka magaalada Addis Ababa. dagaaladan xoogan ee ka socda waqooyiga dalka Itoobiya ayaa moodaa hadda gabi ahaanba inuu soo wareegay gobolka Axmaarada. sidoo kale maamulka Axmaarada ayaa ayagu waxay wadaan abaabul lagaga hortagayo TPLF hase yeeshee ma cadda waqtiga laga hortagi doono TPLF. sidoo kale dawladda deegaanka Axmaarada ayaa waxa la sheegayaa gabi ahaanba inay ka aamin baxday ciidamadii huwanta ay dawladda federaalka ee Itoobiya hogaaminaysay. ciidamadii federaalka iyo huwantoodii kale la socday ayaaba waxa la soo sheegayaa ilaa maalinkii lagu dhawaaqay huwantani inay gobolka Axmaarada ka xoreyn doonaan TPLF inayna wax horumar ahba ka samaynin oo ayagoo dhan dhufeyskan ku wada jiraan qolo markay baxdana qolada kale ay ka daba baxaysa TPLF-na si xooga ku soo galaysa meeshaasi. madaxweynaha Axmaarada ayaa waxa uu sheegay maanta laga bilaabo inaan la isku aamini doonin ciidamada federaalka iyo ciidamada huwanta la socda. sidoo kale laamaha amniga Axmaarada ayaa waxay sheegeen inay qorayaan ciidamo cusub oo ka madax bannaan huwanta ay hogaaminayso dawladda federaalka. huwanta dawladda federaalka ayaa moodaa inay bil ku qaadatay inay kooxda TPLF deegaanada Axmaarada ka xoreyso si ayadoo sidoo kale laba soo sheegayo inay kooxda TPLF maalin walba dhul cusub si qabsanayso. huwanta ayaa waxaa ka mid ah ciidamada dawladda deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan Liyu Booliska oo sidii taariikhdii hore lagu yaqaanay meelaha ay weeraraan si dhib yar loogu kala bixi jiray. hase yeeshee hadda wax warhaba laga mahaya si meesha loo geeyay inay dhamaadeen iyo inay dagaalameenba. dadka qaarna waxayba sheegayaan inay ciidamadaasi ayna weli dagaalkaba gelin oo difaaca u xidheen. sidoo kale qodobada aad wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah laamigii caalamiga ah ee isku xidhay dalka Kenya iyo magaalada Addis Ababa ayaa waxaa la sheegayaa inuu xiran yahay 4 bari. laamigan oo isku xidha dalka Kenya iyo dalka Itoobiya ayaa ganacsi badan wuxuu ka soo gaari jiray qoomiyadda Oromada iyo dadka Itoobiyaanka ee kale.
laamigan ayaa wuxuu xidhan yahay 4 bari waxaana la sheegay laamigaasi inay xidhay jamhadda OLF ee xoreynta Oromiya oo la sheegay usbuucii la soo dhaafay inay gabi ahaanba qabsatay gobolada Oromiya intooda badan. sidoo kale waxaa la soo sheegayaa jamhadda Oromiya Liberation Front inay gabi ahaanba cagta marisay ciidamadii ku sugnaa gobolka Oromiya ee dhulkan uu ku fadhiyay laamiga weyn isku xiga Addis Ababa ilaa Moyale. laamigan ayaa waxaa la sheegayaa hadda gabi ahaanba inay maamusho kooxda TPLF dowladda federaalkana ilaa waqtigan wax waraamayna ka soo saarin xidhitaanka laamigan. maxaa yeelay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa maalmihii la soo dhaafay safar ugu maqnaa dalka Turkiga iyadoo la sheegayo inuu ra'iisul wasaaruhu socdaalkiisii uu guul ku soo dhamaaday. hadda wixii laga bilaabana la ogaan doono wixii ka soo bixi doona dagaalada xooggan ee ka socda waqooyiga Itoobiya iyo gobolka Oromiya. jamhadda Oromiya ayaa waxaa la sheegayaa iyo TPLF inay tartan weyn ugu jiraan kooxda qabani doonta caasimadda dalka Itoobiya waa Addis Ababa. hase yeeshee dowladda federaalka waxaad moodaa inaan xanuun iyo culays ku haynin tartanka ay kooxahan qorshaysteen. dowladuna aad moodaba inay iska jiibto wadmoodo wadanabada inay joogto. sidoo kale kooxda OLF ayaa waxay sheegtay xalay inay magaalada Addis Ababa u jahaysan doonaan maalmahan soo socda. TPLF iyo ayaguna ay heshiis ku yihiin Itoobiya in laga dhiso dowlad isku dhaf ah oo Itoobiya oo dhan loo dhan yahay. sidoo kale gobolka Axmaarada magaalada lagu magacaabo Debre Tabuk xalay waxa ka dhacay duqeymo xooggan oo geysanayaan ciidamada federaalka iyo ciidamada cirka ee dalka Itoobiya. duqeymahan oo la sheegay inay magaalada ku soo dhacayeen ayaa waxaa la sheegay inay waxyeello badan ka soo gaadhay dadkii shacabka ee magaalada deganaa. dadka shacabka ee magaalada Debre Tabuk degan ayaa xalay waxaa la sheegay gabigoodba inay indhahaas ku qaban ayagoo dhammaantood wax qaxay iyo wax guryahooda dhufayska ugu jira noqday. saaka ayaa waxaa la soo sheegayaa inay magaaladaasi joogaan kooxda TPLF hase yeeshee xalay duqeymaha iyo diyaaradaha guuxooda in la seexan waayay. dowladda federaalka ayaa hadda muddo tabarteedii inay ku soo urursatay duqeymaha xagga cirka hase yeeshee inay dagaal foolkafool ah oo afantari ah inayna la geli karin kooxda TPLF. kooxda TPLF ayaa la arkayay iyadoo wadooyinka waaweyn ku wada hubka noocyadiisa kala duwan oo ilaahin wuxuuna u jaahisanaya gobolka Axmaarada ilaa caasimadda Addis Ababa. kooxda TPLF ayaa ismahadisay baryahan dambe maadaama aan dagaal la sheegin. baryahan dambe TPLF xasuuq loogu geystay ama dhul lagaga saaray. hase yeeshee waan wada joognaa dalka Itoobiya meeshuu aado iyo kooxda uu gacantiisa gali doono. daawadayaal waxaan leenahay tan iyo kulanti dambe wanaagsan. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.